Bismillah, Ishmael Warsama Digital Media here. Waydin salaamay dhammaantiinba. Ayaan dhaweyta waxaan isla soo qaadnay doorasho ku sheegii Soomaalidu meeshay marayso. Doorasho dadban, la jiifiyaana bannaan, si kasta laga yeeli karo, awooddii ay gacanta u gashay dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Waxaan kaloo soo qaadnay inay doorashadaasu ka wareegtay awooddii dheeraadka ahaa oo isimada iyo nabadoonnadu ku lahaayeen. Waxay u wareegtay madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda dhexe. waxaynu soo qaadnay boobka ka socda kuraasta gobollada ka soo gelay. waxaa jira waxaynu ku magacownay yani qoore buluug oo ah meeshay isimada ku ahaayeen inay kuwaanu bedeleen dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka. gobolladii ayaa la kala boobaya. madaxda dowlad goboleedyada ama madaxweyneyaasha dowlad goboleedyadu qaarna waa musharaxiin madaxweyne Soomaaliya, qaarna musharaxiintaas madaxweyne Soomaaliyeed ayay u adeegayaan qaarkood. badanaaba waxay u kala adeegayaan madaxweynaha dowladda dhexe Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ama madaxweynihii hore nin walba si u yaqaano, iyo Saciid Cabdulaahi Dani ee ah madaxweynaha dowladda Puntland. labadaa qof ama murashax ayaa hadda ah hormood waxaa la yidhaahdo doorashada loo tartamayo madaxnimada Soomaaliya ee federaalka. mid walba marka muxuu isku hadlaynayaa? Dani wuxuu isku hadlaynayaa Puntland in dooro ka mida Jubbaland iyo in doora oo saaxiibadiis Muqdisho ah, reer hawl wadaag iyo waxa la halmaala. waxaa kaloo jira in Dani damac ka hayo kuraasta ama codka gobollada waqooyi. waana idin sharaxi doonaa sababta. Farmaajo wuxuu isku hadlaynayaa ama ka soo shaqeeyey inuu helo codka gobollada waqooyi, koonfur galbeed, qaybo ka tirsan Hirshabeelle iyo Galmudug. arrinta gobollada waqooyi waa la isku haystaa. gobollada waqooyi hadda waxaad moodaa codkoodu inuu u jarjaro dhanka Farmaajo, laakiin waxaysan ogeyn Farmaajo hadduu ciidankiisa sii dhisto oo mar labaadu kusoo laabto in laga yaabo inuu Hargeysaba u weeraro meesha madaxaajoodka ula geli lahaa. meesha Dani uu xidid la yahay qoyska ugu badan ee gobollada waqooyi, dabacsanaanna muujiyey arrimaha Somaliland oo ay ku jirto Tugarraq iyo Laascaanoodba. waa sababta aad moodid Dani gobollada waqooyi
in ay dhinaca dabacsanaanta iyo wada hadallada iyo wada xaajoodka mustaqbalka soo socda uu dani u dhaamo farmaajo oo aan innaba compromise ka gelayn wada hadallada soo socda Somaliland iyo Soomaaliya sida la yiraahdo boobkii hadda dhammaadkiisii baanu maraynaa in yar baa harsan intaasna waxaan rajaynaynaa asbuuca soo socda inay gabagabowdo intaasaan rabay inaan idinla wadaago aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa idin salaam nabadgelyo waa idin salaam